waxaan maanta iskugu nimid haddii eebbi yidhaahdo inaan qur-aan u akhrino marxuun xamar lagu dilay gacan ka galdaran ay dishay naxariistii janna allah ka waraabiyo qur-aanka aan u akhri doonana ilaahay ha ugu shafeeco asiga intii ummadda islaamka ah oo dhimatay biidni illaahi tacaala waxaan ku wareejinayaa maardhow guddoomiyaha jaaliyadda isboole iyo nawaaxigeeda mr cabdulqaadir nuuno oo noo sii ambaqaadi doona haddii بسم الله الرحمن الرحيم شيخ عبد الله كرن عبد الله وما سنتهاي ولا لا يسعد كور هيسان دمان جاليد الصومالية إسبوعي نواحيجيدا ما أنت أحد كستين سوت ما دحرون تجاليده صار الله سعتان مركب واحد عدي إن أصحاب تأمدت كتر سنة جاليده الرر معلو أي سوق التعسي آدي وتيران له حسيا سوق كده عدي مجال هذا مقدسه جارهان دقمة حمر وينه nin miskiin ahaa oo caruurtiisu u xamaalanayay in si khaldan oo gardarro ah lagu dilay marka maanta waxaa ummadda soomaaliyeed ee ku nool iswalay nawaaxigeeda isugu timid inay mataqaanaa u akhriso quraan ilaahayna mataqaanaa uga bariso inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo dadkii uu ka dhintayna ee reer macallow iyo dhammaan reerkii uu ka dhintay ee reer xamarweyne waxaan leenahay idinkan ilaahay samir iyo imaan ka siiyo waxaan hadda bilaabanaynaa quraan akhriskii dhammaan dadkii ka soo qayb gala oo dhanna waan idinkaga mahad celinaynaa sida walaaltinimada aad uga qayb qaadateen waana mahadsantihiin waxaana marti noo ah xaaji cali oo nooga yimid dalka talyaaniga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إله مثلا والله كل مي ولا لهيجا والله أنت يكون نوليهين عندي سنة كلمات عن إيمان ورواية wiilkii Cabbaas Cali ayaa agtiisaan joogaa sanadkan ilaahay waxay ugu calfay in maasha allah marxaladan inta la wada fadhiyo nin kasta aaraagiisa is wada jeedinayo dhibka iyo dheef oo macnaa yurub oo macnaa uu wada qabo nin kasta wixii dhibkiisa uu sheeganayo waan jeclahay macnaa axad kasta inaan imaado laakiin aniga xoogaa isbitaal waxaa ii socdaa dalka talyaaniga aan deganahay إن شاء الله دلالة إنسان كستو إن هذا كدب سدي أنا سو حرير لها ولا له أو جالية ده أو محن كله لهاي أحد كستو لو فديو سدي رأي كستو معنا بني آدم وحواقف كست رأيه وذي اللي هي إن وحيد يبز أو شاغنايو أو القلب قرايو ولا كاينون ما شاء الله إلهي أي أو عرفي إن أو معنا حافظة أو ماذا حسياي هون وانا وضقبتي الحمد لله إلهكم هذنا السنة عمري عمر الله تديو أنا كن عمري أنا وديو مع القارة أو في كفاحان أو لو فريسو أو بريس لو وضعنا إله نوكسو بارك الله فيك إله نود بركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي يزمع له مرك إن شاء الله waxaan bilaabanaynaa quraankii marxuumku akhri lahayn ilaahayna idinka aqbalo dhamaantiin saanta soo qaadeen oo lacag lagu aruurinay ayaa lagu sheegay waxa la yiri wiil Soomaaliya wuxuu ku yaalaa in doofan sharcina ma haysto lugihiina waa laga jaray waxa laga yaabaa in sii wadan maxay yeelay hadaadan u hadlin mas'uuliyadiis maanta laakiin waxaan u nimid inaan ka tacsiyeyno marxuumkaas Abu Bakar Maxamed Nuuraani ilaahayna mataqaana waxaan uga baryaynaa inuu asaga iyo intii dhimatay oo dhan oo muslim ah ilaahay jannada ka waraabiyo waxaan rajaynaynaa ehelku ka tagayna in maaragtay ay helaan cadaalad waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay ku kala badbaado oo wixii dhibaato ah in laga tanaasulo inay dadka isku kaalmeystaan si walaaltinimo ah waxaana leenahay mataqaana ummadda Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed aan u dirana fariin ah qof kasta oo gardarro qof kale ku dila ama xaqiisa ku dhaca in sida shariicada islaamka qabto la mariyo annaga dad muslimaan nahay waxaan jecelnahay in dadkeena noo badbaadaan in annaga isdilnana nalama farin marka waxaan rajaynaynaa maanta reer macallow yuusuf macallow anala jooga maxamed nawaawi oo odayganina waa maqan yahay isagaaba aas qayb galay waxaan leenahay walaalayaal ilaahay samir iimaan ka siiyo bedelkiisa wax khayr qaba uu idinku bedelo eelkiisana mataqaanaa naga gaarsiiya haddana jaalida Soomaaliyeed iswalay nawaaxigeeda waxaan mar labaad leenahay inaan ka murugeysanahay taxsiisaas tiiraanyadan la iyo dhibaatadaas yarkaas walaalkeena ay soo gaartay waxaan leenahay intii ka soo qayb qaadatay timid waad ku maasantihiin
ilaahay jaraada ka siiyo marka hadda waxaan u gudbanayaa waxaa jirta haddii aan waqti heli karno qameetiga isboola ayaa talaadadan casuumay sida dowladda baarlamankeedu u dhisan yahay inaan ka qayb qaadano oo aan tagno meeshaan aan hadda fadhino waa meel annaga magaca soomaaliga noogu furan oo aan leennahay sidaan rabno isticmaali karno talaadada waxaana loo belamiyey baarlamaanka magaalada isboolo looga taliyo waana gobolka ugu weyn 6 saacana laga rabaa waxaan idinka codsanaynaa cid kastoo firaaqa haysa inay noo timaado 5 saac waa tegaynaa burqamaystarka kharifiga qamaynti raadka dadkiina loogu talagalo dhan baana arkaya na soo dhaweynaya xaqaan ku leenahay doorashaa soo socota inaan ku xisaabtanno waay meesha aan joogno inaan ka muuqanno awoodda ilaahay nisiya annagoo muslina ayaan waxaan rabna ka fulsanayna meeshaan salaaddii aan ku tukanaynaa oo ku soomaynaa marka waa waddan aan leenahay marka waxaan idinka codsanaynaa maalintaas oo talaadada ah 5 saac inaan isugu nimaano shabeelle shoob waa iswada raacaynaa meeshaasaa marka wixii brograama ee ka jira aan kusoo gabagaynayna waa maasantii dhammaantiin waxaan had ku wareejinaa odayga magaalada maxamed weli waraa ku jira inuu hadlo rahmaani raxiim odayaashoo dhan kulli waa wada hadlaynaa oo qof kastaba meeshiisaa loogu keenaa mikrofoonka sheekh qaasin ajir xasanad ilaah ka siiyo dhammaan hadda dadka meeshaan joogay inta naga maqanba waa wada dadaaleen walaalayaal waxaa ogaataan isku imaashaha iyo iska warhaynta waxaa laga yaabaa dad badan waktiga inuu ku yar yahay laakiin waxaa ku badbaadaya wax badan oo dad soomaaliyeeda waxaa dhacday yarkaas hadda soomaaliga ah lacag ilaa 5 kun 6 kun lagu duugi lahaa markaan la xaajoonay qameetigii lacagtan ayaga qaatay maxayna ku timid wada hadalka aan la galnay inaan nahay dad soomaaliyeed oo jaaliyada rabana inaan ka qayb qaadano qaasin qiimihii ma sheegin annaga waxaa nooga soo aaday markii wax allaal wax hartaa sheegtay dowladdii intaa bixi kartaan 500 aan naga qabsana marka lacag 5 kuna ayaa 500 aan dhahan waa bixinayna ilaahay muxuu qadaray dadka inta fadhiyay inta maqan ayaa lacagtii ku aruuriyey si fudud wiilka soomaaliga sidii islaamka qabay oo sharciga ahayd ayaa loo duugay lacag ilaa 8 kun oo ku baxday laakiin maxay faa'iidada leedahay maxaa waaye annaga dad muslimiinahay waa kala dambaynaynaa ilaahay baa noo qadaray in la dhinto ma laga badbaadayo laakiin waxaad ogaataan inaan leenahay nidaam haddii aan isgarabsanno inaan wax badan ka helino waxaa laga yaabaa dadka soomaalida waxa dhisan inay u arkaan xujo maxaa u imaanaynaa axad kasta maxaan u yeelaynaa hadda 500 aa lagu aruuriyey meeshaan bal ilaahay fadligiisa ka hor awooddiisa haddaanan isku imaan lahayn guryaha baan gargaraaci lahayn marka waxaan leenahay nidaam aan wax ku raadsanno annagaa isku tashanay dowladdii waxayna sii lahayd wayba na siisay laakiin waxay leeyihiin is ururiya nidaam ku imaada soomaaliya waxaad ogaataa meel kastaa joogta adaa u ah mas-uul soomaaliyeed magaalo kasta aan ku firirsannahay waxaan ka nahay tusaale ama ambasaduur wax lagu magacaabo qofkaas soomaaliga agtaada degan adaa mas-uulka hadda waxaa naloo soo sheegay yar ayn doofan farihii lugihii dhan laga jaray qaxooti ah tahriibuu soo gala ruushka iyo ukraine markuu intii yimid waxaa lihi lugaha waa dhinteen cid u timid ma laha xalay ayaan midana aan rutidaan wada muslim oo walaalo oo xiriirkooda aad u fiican yahay aniga waxaan si gaara aan maaragtay mawduucan ugu soo qaatay waxaa jira wiil dhalinyaro ah oo ilaahay naxariis jannaha siiyey 3 usbuuc ama 2 usbuuc ka hor aan ku aasanay magaalo Groninganka xaggiisa xigta marka waxaana qayb weyn oo aan la tilmaami karin qaatay maamulkan iyo guddoomiyahooda oo weli gaashaanka u dhigay inuu wax alla wixii suurtagal ah la qabto horta guddoomiye waxaan leenahay jazakallahu khayr wax weyn aad noo samaysay oo looga maarmaynin qof walba oo noolna dhimashaa sugaysa marka annaga waxaa muhiim noo ah tan oo kale haddee timaado ilaah baa qadarka wato qof walaala oo meeshaan qaxootinimo u yimid oo aan waxba gacan ku haysan haddii tiisa ay timaado wuxuu sugaa walaalihii Soomaali ah marka dhalinyaradii ka qayb qaadatay maasha Allah lacagtiina laga soo dalbay anay qayb ahaan noogu soo aaday maasha Allah way soo ururtay wayna nagu filan tahay intii bixisayna ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro wanaagan iyo in ka badanba ilaahay hana waafajiyo insha Allah annagana waxaan leenahay Abduqaadir Cali ilaahay mataqaana asana ajir iyo xasanaadka ka siiyo hadduusan ahaan lahayn waxaan u maleynayaa in arrintaas wiilkaasi ay noqon lahayd in maanta la gubo ilaahana ka badbaadiyey
iyo walaalaha aan sii wada tegey wajazaakum allahu khayr intii baxsatayn ilaahay sadaqa jaariha uga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu u naxariisto gacan ka daran baa dishay ilaahay ha u naxariisto aan leenahay annaga dhan jamiican laakiin anigu waxaan soo jeedinayaa walaalayaalow dadna waa dad hore yimid dadna waa dad dambeed maadaama saana kale isugu nimaadno waxaa jira dadkii meeshan deganaan jiray dadka ku dhintay ay ka mid yahay xaawo ciid allah u naxariisto cumar geedi ay ka mid yahay bal ayagana faatixada aan u marno guud jaamac dad baa meeshan ku dhintay dad ka qayb qaadan jiray faatixada akhrin jiray wax kasta waa qaban jiray marka ilaahay dadkaas ha u naxariisto bal faatixada dadkaas ha loo maro agtiinay ku duugan yihiin qubuurahan intay ku duugan yihiin marka dadkaasna faatixada aan u marno muslimiinta ah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu